marka bishaan in khayrka loo bato waxa laga yaabaa shacbaankan inuu yahay adduunkeena macsalaamiisna dhici karto oo ramadaan baadan gaarin intaad dhahaysa ramadaan haddaan gaaro waxaasan sameynaa kanaan sameynaa kamaan sameynaa inaadan gaarina laga yaabaa leertul qadarkii hore in malakul mawdka gacanta lagu geliyay adiga oo dadka baxaya sanadkan inaad ka mid nahay ma sheegi karno habeenkaas marka waxa weeye maamulkii ilaahay iyo qadarkii ilaahay agtiisa intuu ku soo fulo ayuu malaa'igtii u qaabilsanayd ayuu gacanta u gelinaa marka malakul mawdkii intii ku tegi lahaa la siinaa kii malag walba wixii u qaabilsanaa kii halaaga u qaabilsanaa kii matarka u qaabilsanaa kii caafimaadka u qaabilsanaa kii cudurka u qaabilsanaa malaa'igtii kala lahayd ayuu siinaa ilaaha xukunkaas kor ku haayo sanad walba waa kashfinaa malaa'igtii u gudbinaa anaga marka ma sheegi karno sanadkii hore ilaa sanadkan waxaad ogtihiin dad badan oo naqaano oo baxay oo adduunka tagay oo ramadaankii hore joogay markii amarka uu dhaco ayaa fahmaysaa wallah hebel haweenkii leelatul qadarkii dadka dhimanaya inuu ku jiri markii dhacdaad fahmayaade anagana hadda waan noolnahay dadkaas inaan ku jirna ma sheegi karto 5 sano kadib miyaa 6 sano kadib miyaa sanadkan miyaa ma sheegi karto acmaasha saalixada la rabaa in loo bato oo aadan ku sheekeen xadiiska ibn umar moogido oo nabiga uu yiri kun fi dunya kaannaka gharib aw aabiru sabil adduunka saas kuna qaalowda qof wada gooynayo kale markii hadalka oo nabiga ibn umar ku yiri wuxuu dadku u sheegi jiray haddii subax aad gaartid nafsadaada galab ha ugu sheekayni waxaad qabsan kartid qabso haddii galab ilaahay ku gaarsiiyana subaxaad gaaray nafsadaada ha ugu sheekayni wixii khayr aad qabsan karto qabso saasuu dhihi jiray ibn umar radiyallahu anhu